soo dhaweedo galabta waxa magaala madaxda gobolka Sanaag ee Ceerigaabo ka dhacay mudahaarad ballaaran oo lagaga soo horjeeday natiijadii guddiga komishanka doorashooyinka Soomaaliland ku dhawaaqeen oo madaxweyne loogu doortay musharaxa madaxweyne xisbiga muxaafidka ee kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi waxaana dadkan mudahaaraadiyay ku dhawaaqay halku dhigyo ka turjumaya dareenkooda ayaa waxay sheegeen in wax kasta oo musuqmaasuq iyo wax istamamarin ay marnaba aqbaleen iyagoo sheegay in xisbiga mucaaradka ee wadani codkii lagaga shubtay komishankuna uu ku dhawaaqay xaqdar iyagoo intaas raaciyay in aanay marnaba aqbaleen doorashada la doortay mudane Muuse Biixi Cabdi muuse anagu kuma rabno kuma doonayno dagaalkii 19 aad bilowday baad dib u soo celisay iminka barnaamijkaagii baa yaala dishay Ceerigaabo waa yaalaan anagu ma rabno muuse dooni mayno inuu Ceerigaabo ka talinayn iyo burxaba anagu hadana dhalinyarada Ceerigaabo dooni mayno anagu hadaan nahay dhalinyarada Ceerigaabo ama gobolka Sanaag Muuse Biixi dooni mayno oo ma rabno oo ma doonayno dagaalkii uu 19 u bilaabay ayaanu maanta dib u soo celinayna hadii Muuse la ka bedeli waayo ama Muuse la ka bedeli waayo hadeerba waxaan leenahay Muuse gobolka Sanaag annaga xukumayna annaga iskale maanta ka bacdi annaga gobolka Sanaag xukumayna hala ku soo lugoy sababta ayaa mudahaaraadkan waxa ku dhaawacmay 2 qof oo rayda waxaana meel kasta oo magaalada Ceerigaabo kamid ah soo buuxdhaafiyay ciidamada qaranka ee kala duwan waa Cadnaan Cabdirashiid Cali telefishinka caalamiga ee Soomaali News magaalada Ceerigaabo.